kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada shabakada codka Tolmon. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa diyaarad laga leeyahay Holland oo ka duushay isla dalka Holland oo muddo 12 saacadood oo ay hawada ku jirtay dib ugu laabatay isla bartii ay ka kacday. rakaabkii diyaaradda Dutch Airlines ayaa ay la soo deristay xaalad adag kadib markii ay hawada ku jireen duulimaad qaatay muddo 12 saacadood ah iyagoo aan gaadhin meeshii ay u socdeen. kadib daal fara badan kaasoo ay dareemi lahaayeen cid walba oo safarta saacado badan ha ku safarto dhul bad ama cir. diyaaraddii iyo rakaabkeedii waxa ay ku soo noqdeen meeshii ay ka kicitimeen iyagoo aan gaadhin bartii ay rabeen. intii lagu guda jiray duulimaadkii diyaaradda KLM oo ka tirsan diyaaradaha Holland dhammaadkii sanadkii 2019 diyaaraddaas ayaa waxa ay ka kacday caasimadda Amsterdam ee dalka Holland iyadoo u socota caasimadda dalka Mexico ee Mexico City. balse kadib 5 saacadood iyo badh ay hawada ku jirtay bayloodadii diyaaraddu waxa ay go'aansadeen inay dib ula noqdaan rakaabkii waxaana uu qaatay duulimaadkii laabashada diyaaraddu muddo gaadhaysa isla 5 saacadood iyo badh kale. taas ayaa waxay ka dhigaysaa safarkan diyaaradda mid ka mida duulimaadadii ugu dheeraa caalamka kuwaasoo ku dhammaaday bartii ay ka bilaabmeen. waxa uu go'aansaday bayloodkii diyaaradda KLM inuu dib u laabto kadib markii uu falkaana ka kacay meel u dhow caasimadda Mexico, arrintaas oo keenaysa inaanay diyaaraddu ku dul safri karin amaba u dhowaan karin goobtaas. diyaaradduna waxay ahayd mid waqtigaa ku jirta hawada dalka Canada kadib markii ay ogaadeen bayloodadii diyaaraddu in falkaana ka qarxay meel u dhow Mexico City, taasoo ku khasabtay inay dib u laabtaan iyagoo dul maraya badda Atlantic Ocean sida laga soo xigtay website-ka Business Insider. iyadoo ay badanaa shirkadaha diyaaraduhu ay raadiyaan airport bedel u noqda kadib marka ay timaado xaalad degdeg ah, hase yeeshee shirkadda diyaaradaha Holland waxa ay u sheegtay website ka warrama wararka duulimaadyada in ay fadhiisato airport kale inaanay ahayn wax suurtagal ah marka la eego baahida ay u qabeen musaafiriintu dalku gal ama fiise. waxaa kaloo jiray xamuul farda ah oo ay diyaaraddu siday. intaa waxa ay raacisay shirkadda diyaaradaha Holland warbixin ay leedahay oo sheegaysa in qaraxa falkaanuhu uu abuuray duruuf adag oo aanay diyaaraddu xamili karin, isla markaana ay keentay in duulimaadkii rakaabku dib u laabto kaasoo ay siday diyaaradda B747. arrintaasina waxa ay dhacday 28 bishii Noofembar ee sanadkii 2019. ugu dambeyn diyaaraddii waxa ay si nabad ah ugu soo degtay airportka Schiphol ee caasimadda Amsterdam. waxa ay isku dayaan had iyo jeer bayloodada diyaaraddu inay ka fogaadaan inay duulimaadka sii wadaan haddii meel u dhow ka kaco dambas ka dhasha falkaanaha, sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu ku sababo in ay waxba arki waayaan, taasoo ay ka dhalan karto in rakaabka iyo diyaaradduba halis galaan. waxaa la tilmaamaa in falkaana uu ka qarxay dalka Iceland bartamihii sanadkii 2010 uu ku qasbay shirkado badan oo duulimaad kuwaasoo laga leeyahay dalal badan oo Yurubta ah inay joojiyaan gebi ahaanba duulimaadyadoodii muddo gaadhaysa ku dhowaad usbuuc.